sida aad ka warhayso dadka Soomaalida ah waa dad aad u firfircoon magaalada Edmonton marka aad joogto meel walba oo aad tagto waad ku arkaysaa Soomaalida haddii aad tagto xafiisyada dawladda waxaad arkaysaa dad dawladda Canada u shaqeeyo haddii aad tagto xafiisyada non-profit organizationska waxaad arkaysaa non-profit organizations aad u badan oo Soomaali ay leeyihiin ama ay maamulaan ama ay hoggaanka yihiin haddii aad eegto ganacsiyada waxaad arkaysaa Soomaalida ganacsigeeda aad inuu ballaaran yahay magaalada Edmonton waxaad arkaysaa meelaha maxaan ku raadaa lagu iibiyo dharka iyo waxyaabaha maaragtay la isku carfiyo iyo roogaga iyo waxyaabahaas wixii lamida waxaad arkaysaa meelaha wakaaladaha safarada travel agencieska meelaha taxiga lagu xareeyo maqaayadaad arkaysaa ganacsiyo aad u kala duwan ayaad ku arkaysaa magaalada gudaheeda oo Soomaalida ay leeyihiin sidoo kale Soomaalida waxaad ku arkaysaa shaqooyinka sida truck drivingka ama muxuu ahaa taxi drivingka dad badan oo Soomaaliya ayaa jecel inay ka shaqeeyaan waxyaabahaas sababtuna waxay tahay Soomaalidu waa dad aad u jecel xorriyadooda waqtigooda in ayaga maamushaana jecel sidoo kale waxaad arkaysaa dad Soomaaliya oo ka shaqeeyo kaamamka shidaalka waxaad arkaysaa dad Soomaaliya oo ka shaqeeyo maxaan ku iraahdaa istoorada waaweyn ee wadanka meel walba aad tagto Soomaali waad ku arkaysaa taas waxaa sii dheer dadka Soomaalida ah waxay uga duwan yihiin dadka soo galootiga wadankan ku ah in ay yihiin dad aad geesi u ah oo siyaasadda xitaa isku dayo in ay maaragtay ka qayb qaataan waa laga yaabaa inaad marar badan maqashay meelo badan oo kamid ah dalka Canada in dad Soomaaliya ay ka tartameen qarni ay ku guuleysteen hadda anaga magaaladeenan Edmonton marar badan ay dad Soomaaliya tartameen ay u tartameen saddexda xafiis oo kala ah midka heer federaal iyo midka gobolka iyo midka dawladda hoosaba sanadkan waxaa tartamaya laba wiil oo Soomaaliya oo ayagana ka tartami doona magaalada Edmonton Alberta marka taas waxay ku tusaysaa dadka Soomaalidu inay yihiin dad miisaan culus ka ah dalka Canada gaar ahaan gobolka Alberta kasii gaar ahaan magaalada Edmonton haddii aan ka hadlo sida dadka Soomaalida ah ay uga faa'iideysan karaan dalkan Canada dadka Soomaalida ah طبعا sida aad ka warhayso waa dad isku xiran oo inay sacaawiyaan aad u jecel laakiin waxaan kula talinayaa qof kasta oo wadankan ku cusub inuu isku tashto oo qofka hadduu u baahdo ay noqoto marar dhif ah sababtoo ah dadka wadankan aad ayay mashquul u yihiin waqti badan ma heli karaan ay dad ku caawiyaan laakiin haddana saas ay tahay dadkana waad garanaysaa waa dad aad iyo aad ugu dadaalo in ay iska rab qabtaan waxyaabahan u soo jeedinayo sidoo kale waxaa ka mid ah in marka aad wadanka timaado aad maxaan ku iraahdaa guriga fariisanin oo aad dibadda u baxdo oo aad aragto adduunka wax ka socdo dalka wax ka socdo magaalada wax ka socdo dad badan aad maxaan ku iraahdaa aad barato networking aad samaysid meelaha maxaan ku iraahdaa Soomaalida isugu yimaadaan aad tagto meelaha shaqooyinka iyo maaragtay job fairska laga sameeyo inuu tago qofka in maxaan ku iraahdaa website-yada shaqooyinka laga helo sida Indeed oo kale qofka uu galo ayuu u baahan yahay sidoo kale wuxuu u baahan yahay qofka in uu karto shaqooyinka noocyada ay kala yihiin shaqooyin waxaa jiro maaragtay just physical ah kuwa mental ah kuwa skill u baahan haddii uu maaragtay uu isu arko inuu yahay qof maxaan ku iraahdaa capable ah shaqadaas qaban karo in uu kobciyo xirfadiisa haddii uu ku kobcin lahaa xag waxbarasho iyo xag khibradba marka طبعا talooyinka waa iska badan karaan laakiin intaas ayaan ku soo koobayaa